dowladda federaalka Itoobiya ayaa si adag ugu soo jawaabtay Soomaaliya, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo shalay ka hadlay arrimo xasaasi oo ku saabsan xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya. Axmed Macalin Fiqi, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo si gaar ah uga hadlayay faragelinta Itoobiya iyo arrimaha gudaha Soomaaliya, ayaa sheegay in Soomaaliya ay fursad u haysato inay xiriir la samaysato jabhadaha ka soo horjeeda Itoobiya haddii ay sii socoto faragelinta Itoobiya. Wasiir Fiqi oo arrinkan ka hadlaya waxa uu yidhi sidan: annagu hadda Itoobiya burburkeeda dooni mayno oo wax dan ah Soomaaliya iyo geeska Afrikaba uguma jirto, laakiin haddii ay ku sii socdaan heshiisyada ay la gelayaan kooxaha gooni-goosadka ah, waa waddan noo furan inaan cilaaqaad la samaysano jabhadaha gooni-goosadka ee gudaha Itoobiya ka jira. Jabuuti ayaa laga siiyey dekad leh kaabayaashii waddooyinka ahna meesha ugu dhow Itoobiya, laakiin Itoobiya uma socoto halkaas. Waxay rabtaa dhaxalka jiilasha Soomaaliyeed ee soo socda. Intaas kadib, hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa ka soo jawaabay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyu Tedla oo gaf weyn ku kacay, wuxuuna ugu horreyn wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, isagoo intaas ku daray in dowladda Soomaaliya aysan ka talin karin meel dhaafsiisan magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay. Waxaa kaloo uu liiday qarannimada Soomaaliya uu ku tilmaamay mid daciif ah, arrintan oo uga sii daraysa xiisadda iyo khilaafka u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo u soo jawaabaya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu yidhi sidan: waa wax lagu qoslo in wakiilada shabaab oo iska dhigaya mas-uuliyiin dowladeed oo aan ka talin karin meel dhaafsiisan gobolka Banaadir ay aflagaadoodaan iyagoo hoos jooga qarannimo daciif ah oo ay gadaal ka riixayso nidaam dowlad dhexe oo qabiil ku salaysan. Dadka noocan oo kale ah waxay wiiqayeen horumarkii ay sanadihii u dambeeyey gaaraysay Soomaaliya, iyagoo horseedi karaa kala qoqob, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo ka soo jawaabayay hadalkii wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. gardaradan, aflagaadadan, afxumadan cad oo meel cad iskeentay bal ila arka. warwarhan oo dambeeye ninkan waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda, waa idin fasiraya. horta wuxuu leeyahay idin fasiraa qaylo iyo xanaaq hanoo dambeeyo. ninkan waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, wuxuu soo qoray waa wax lagu qoslo ayuu leeyahay. waa idin fasiraa, wuxuu soo qoray idin fasiraa. waxa hadalkan uu soo qoray wuxuu daba taagan yahay muuqaalkii Axmed Macalin Fiqi uu ku yiri waxaan heshiis la geli karnaa gobollo kamid ah Itoobiya haday Itoobiya dhaaf weyso. marka xariifkan wuxuu soo qoray oo Itoobiyaanka ah wuxuu yiri waa wax lagu qoslo dad al-shabaab ah oo al-shabaab u shaqeeyo laakiin iska dhigayo inay yihiin saraakiil ka tirsan dowladda. Axmed Macalin Fiqi ayaa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay al-shabaab dowladda ku soo gambanaya ayaa lagu tilmaamay. warkan jawaabta aan ka rabno Axmed Fiqi inuu bixiyo muuqaalkan qaybtiisa ma dugsiga loo hadalka ay dhameystiro. wuxuu kaloo leeyahay dadkaas al-shabaab ku soo gambanayo Axmed Fiqi oo ka wadaa oo xitaa aanan awoodin in meel ka baxsan gobolka Banaadir ama magaalada Muqdisho ee ka howlgalaan. wuxuu ayaga dhan ku tilmaamay al-shabaab gobolka Banaadir ku eg ayuu ku tilmaamay. intaas miga heesa wuxuu kaloo leeyahay kolaha iska dhigayo inay qadiyad iyo Soomaalnimo ku jirto laakiin qabyaaladiistayaal ah. war bal fiiri Itoobiyaanka meesha ay naga taagan yihiin bal ila fiiriya. kolaha sidoo kale arrinkan hadday ka baaqsan waayaan hanjabaad waaye. jumladaas ugu dambeyso waa hanjabaad caadi ah. wuxuu leeyahay arrinkan hadday ka baaqsan waayaan sanado badan oo horumar ay sheeganaysay dowladda Soomaaliya ayaan dib u dhigaanaa u taagan yahay. bal waxaan ila arka haddaan naga aamus weysiin kulaha sanado badan oo horumar gaarteen, yani wuxuu ka wadaa inta hadda gaarnay ayaa dib idin 10 sano dib idinku celin doonaa. waagii Muqdisho isku burbursanayay ayaa dib idinku celin doonaa ayuu taagan. bal yaabkan iyo aflagaadadan ila arka. Axmed Macalin Fiqi berri waxa ka rabnaa anigoo ku hadlaayo afka SYL number 2 waxa ka rabnaa berri jawaab degdeg ah arrinka inay ka bixiso. maxay tahay jawaabta ka bixin doonto? horta inta ha ii dambayse dadkan saan kula hadlaayo waa dad ilaa ay hadeertaan boorkaada dhex fadhiyo oo haysto oo xoog ku haysto waay. ficil iyo af labadaba waa nagula dagaalameen. ficil iyo af annaga weli afka xitaa waa ka hadli la'nahay.
dadkan ficil iyo af ficil ciidamadooda dalka joogo taangidooda dalka yaalo eelabooradii dalka Soomaaliya la sheegay eelabooradis ay dhex fadhiyaan xog ku qateen afna wakaasa saas lagu aflagaadeynay adigaas Axmed Macalin Fiqi oo al-shabaab la dagaalantid habeen iyo maalin adiga laftirkaada lagu tilmaamay inaad tahay agent al-shabaab ah adiga lagu tilmaamay ana dhahay wakaasa ninkaas yiri waana hadal uu ninkaas yiri saacado ka hor 2 saac ka hor meelaas way marka waxa uga fadhinaa dawladda arrimaha noocan oo kale inaysan ka aamusin dal haddaan nahay Soomaali la dhaho haddaan dal nahay ummad aan nahay Soomaali aan nahay dad muslim aan nahay waxaan nagu socdo dagaalka afka ah iyo dagaalka gacanta ah waxa uga hadli la'nahay horta maxaa noo diiday annaga inaan saan oo kale u hadalna maxaa noo diiday madaxdeena markay hadlayso maaragt jiljilaaca yeeli mayno iyo hebelow mayno ma ku dhahayaan dadkan waxaase soo qoreen annaga maxaa noo diiday hadalla adag inaan ku hadalno war maxaa ilaahay ummadii nooga reebay mise ninkan wuxuu sheegayo ayaa ka dhaba horta madaxda dawladda waxa ka rabnaa Axmed Macalin Fiqi iyo xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya berri waa inaa laba mid sameeyaan marka hore soo saara hadal soo saara oo ninkan aan leedihiin waxa uu ina dhahdaan ninkan waxa uu soo qoray waa been waa ina iska fogeysaan eedaynta la idin soo jeediyay maxaa yeelay ninkaas u jeedaan waxa la socdo oo indhaha ku haayo beesha caalamka indhaha ku hayso diblomaasiyadda adduunka la socdo waxaan la soo qoray hadda iska fogeyn weysid marka Allah waxa laga sheegayo inay runta waa ina jawaab ka bixisaa hadii kale hadda ka aamustid sida caadiga la idin kaga barta hadda ka seexataan arrimaha noocan oo kale waxa la sheegayo halisaaba nagu sii wadaanba macna dawlad anaad waxay xanaajinayo oo gacmaha u tagtaagayo wax kale ma aha dawlad dhan oo anaga habeen imaal u doodno cadawga kala doodno oo dawladda laftirkeeda ay hadli laadahay asaas lala hadlaaya dawladda dhan lagu tilmaamay Arsenal dawladda dhan waxa lagu tilmaamay Arsenal jawaabta labaad idin ka rabo walaalayaal soo saara xitaa yeesan dhaqan gelin warqad soo saara oo aad leedihiin waa diinay ciidamada deriska ah weligeed dambo lama aqbalayo ibidkeed dambo ciidan deris ah ma rabno haddana ultimatum ma Maaliya ka fiicanta adi ma Nigeria ka fiicanta ma Algeria ka fiicanta warqad dhaheeso ciidamada deriska ah waqti u qabta ana had idin si sheegayo October 15keeda u qabta October 15keeda ha nooga baxaan ciidamada deriska ah hala dhaho ma baxayaan Kenya Ethiopia ana og maxay waxay aaminsan yihiin goboladan gobol qabiileedkan hadda Soomaaliya ka jiro in ay leeyihiin aaminsan ma baxayaan laakiin idinka dawladda iska dhiga horta hadla tabar ma bilihiine bal hadla hadii kale ciidan waa noo joogaa waa ila socdaan tuutahaas ay wataan waa dhalinyaro galiya dagaalka dhalinyarada dalka hal xuray hal dhaho ma badhowsinbe dalka xuray dhalinyarada ma bilihiine tuugmadan iyo ra'iisul wasaaraha meel hiblaaye ka tagay madaxweynaha meel hiblaaye ka tagay nama qaadaniyo war dad iska dhiga adduunka wuxuu ku jeclaanayaa markaad tabar leedahay oo laga arko inaad dagaalamaysid af iyo adinba ku dagaalamaysid adduunka markaas uu ka dambeeyay salaan uu ku saara